Maxkamadda Gobolka Mudug ee Galmudug ayaa maanta u kala xukuntay milkiyadda dhul ku yaala degmada Bandiradley muwaadiniinta kala ah Macalin Muxyidiin Macalin Cali Jaamac iyo Maxamuud Cabdullaahi Ducaale dhulkaani oo muddo dheer murankiisu taagnaa ayaa waxaa madasha lagu kala xadeynayay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Mudug Abukaati Cabdirasaaq Cali Yuusuf taliyaha saldhigga booliska degmada Bandiradley Shucayb Nuur Tahliil iyo garsoorayaal ka tirsan Maxkamadda Gobolka Mudug gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Mudug ee Galmudug Abukaati Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaana ku dhawaaqay xukunka fulinta ee ka soo baxay maxkamadaha heerarkooda kala duwan ee Galmudug. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wad din. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha labaad 2025 maxkamadda gobolka Mudug ee Galmudug oo ay weheliyaan taliska booliska ee gobolka Mudug gaar ahaan taliyaha saldhigga degmada Bandiradley waxay halkan u joogaan fulin xukunno maxkamadeed xukunnadaas oo ka soo baxay maxkamadaha darajooyinkooda kala duwan ee Galmudug xukunnadaas oo lagu xukumay dhulka kan aan dhex taagannahay loona kala xukumay muwaadiniinta kala ah Macalin Muxyidiin Macalin Cali Jaamac oo ah muwaadinkan garabkeena taagan iyo Maxamuud Cabdullaahi Ducaale xukunnadaas oo soo maray maraaxil kala duwan ilaa iyo maxkamadda sare labada muwaadin ee xukunnadaas loo kala xukumay waxay isku haysteen dhulka kan aan dhex taagannahay kana soo bilowda baraagtaas xagga nooga muuqata oo ay leeyihiin reer Cabdullaahi Ducaale iyo gurigaas qabyada ah oo ah dugsiga Macalin Muxyidiin Macalin Cali Jaamac dood dheer kadib iyo xukunno kala duwan oo maxkamadaha ka soo baxay kadib Macalin Muxyidiin waxay maxkamaduhu u xukumeen dhul cabirkiisu yahay 50 mitir oo u degta inta u dhaxaysa dhulka kanaalka reer Indhamale iyo reer Cali Diini maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha labaad 2025 maxkamadda gobolka Mudug ee Galmudug waxay halkan u joogtaa fulinta xukunnadaas aan sare ku soo sheegnay waxayna halkan u jari doontaa Macalin Muxyidiin Macalin Cali Jaamac dhulkii 50 mitir oo ahaa dhirirka ballacana oo ahaa inta u dhaxaysa kanaalka reer Indhamale iyo reer Cali Diini maanta laga bilaabana dhulkaas 50 mitirka ah waxay ku wareeji doontaa Macalin Muxyidiin tasarrufkiisa inuu ugu tasarrufo sida sharciga ah iyo in uu uga haro Maxamuud Cabdullaahi Ducaale inta asagana maxkamaduhu u xukumeen oo ah inta ka soo hartay dhulka 50 mitir ah una dhaxeeya labada kanaal ee reer Cali Diini iyo reer Indhamale maanta maxkamaddu waxay ku wareejinaysaa Macalin Muxyidiin dhulkaas 50 mitir ah dhirirkiisu yahay cabirkiisu balliciisuna u dhaxeeyo reer Indhamale iyo reer Cali Diini maanta laga bilaabana asaga ayaa tasarrufkiisa iska leh dhulkaas dhanka kale Macalin Muxyidiin Macalin Cali Jaamac oo maxkamaddu u xukuntay 50 mitir oo kamid ah dhulkan ayaa ka mahad celiyay isla mar ahaantaasina aqbalay xukunka ka soo baxay maxkamadaha heerarkooda kala duwan ee Galmudug waxaan u mahad celinayaa maxkamadda sharafta leh iyo walaalaha ka qaybgalayaasha oo ka soo qayb galay
ilaahayna waa uga mahadinahayaa dadkii walaalahayaga ah oo muddo dheer ishaysanay haddii sharciga haddii alla ku run yahay diintana waafaqsan oo dawliga haddaan ku kala harnay aniguna intaas u dhaafi maayo maanta ka bacdi ayaguna intaa ay soo dhaafi mahayaan haddeed wixii meeshaan hadda waxaa isugu yimid markaan ka hor dad aan isleeyahay 150 bay u dhexeeyeen oo waxgaradkii culamaa udiin iyo haddii alla ku ron yahay iyo odayaal iyo bandiirada dadkan waddankan wax ka galay oo dhan ah maxkamadan ku kala haraynaa baa leeyahay qabiil kala aadamayno arrin kala aadamayno alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan ku xamdinaynaa maxkamadana waa u mahad celinaynaa